Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. I am Hamza Muhammad Umar, a student of BBA in Dhaka University. First of all, I would like to thank my dear brother, the chairman of Somaliland Student Association in Bangladesh, Mr. Abdurrahman Farade, who organized this beautiful meeting today. Secondly, I would like to congratulate the people of Somaliland in the event of a teammate wherever they are around the world. Today is a great day for all of us and the day that will declare our independence from Somali Republic. Finally, I wish all Somaliland people a success and prosperity. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anigoo kamid ah ardayda jaaliyadda Somaliland ee wax ka barata dalka Bangladesh, gaar ahaan caasimadda Dhaka, dhigta jaamacadda United International University. Waxaan halkan hambaliyo bogaadin uga dirayaa qarankayga Jamhuuriyadda Somaliland munaasabada xuska 18 May awgeed. Munaasabadaas oo ah sanad guuradii 29aad ee ka soo wareegtay la soo noqoshadii qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland ay kala soo noqdeen dawladda jaarkeena ah ee Soomaaliya. Dhammaan waxaan hambaliyo u dirayaa shacabweynaha Somaliland kuwa dibadda joogay dalka gudihiisa anigoo ka bilaabaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo dhammaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Somaliland. Bismillahir Rahmanir Rahim. Anigoo magacaygu yahay Cabdiqani Faysal Maxamed, kamid ah ardayda wax ka barata dalka Bangladesh. waxaan halkan hambaliyo bogaadin aan la soo koobi karin uga dirayaa dhammaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Somaliland meel kasta ay ku sugan yihiin, taasoo nagu hambalinayo sanad guurada 9aad ee ka soo wareegtay maalinkii Jamhuuriyadda Somaliland ay la soo noqotay madaxbannaanideeda kala soo noqotay dalka Soomaaliya 18 May 1990. waxaan leeyahay dhammaan shacabweynaha Somaliland marka la hambaliyo soo kale waxaan hambaliyo gaar ah u dirayaa ciidanka qaranka Somaliland meel kasta ay joogaanba, taasoo ku hambaliyeenayo dadaalka weyn ee u hayaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Somaliland. waxaan leeyahay ummadayda reer Somaliland alle masiibada dunida ku afsitahay inay dhaafiyo, dhamaantiin waxaan ku dardaarayay inaad qaataan shuruucda dawladdu idin soo jeediso, sidoo kale aad digtoonaataan. Bismillah. Assalamu alaykum. Magacaygu ah Cabdiqani Mahdi Yusuf. halkan waxaan hambaliyo uga dirayaa dhammaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo leeyahay Happy 18 May. waxaan kaloo hambaliyo u dirayaa dhammaan ardayda ku nool Bangladesh oo leeyahay Happy 18 May dhamaantiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anigoo Cabdiraxmaan Ali Sugle ah gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee dalka Bangladesh. halkan hambaliyo bogaadin waxaan uga dirayaa dhammaan shacabweynaha Somaliland meel kasta ay joogaan. intaa kadib waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland. annagoo ah ardayda Somaliland ee dalka Bangladesh waxaan noo qorsheysanayd inaan maalinta qarannimada ee maalinta ugu weyn inaan xusno, laakiin waxaan hor istaagay sababaha caafimaadka ay soo jeedisay dalkaanu joogno iyo dhammaan dalalka kale ay soo jeediyeen. sababahaas inaga hor istaagay. waxaan leeyahay dhammaan ardayda Somaliland ee dalka Bangladesh waxaan leeyahay waa inaan raacnaa qawaamiinta ay soo jeedisay dawladda Bangladesh aynu joognaa guryaha inta laga soo saari doono qaraar dambe. waxaanu leenahay insha Allah waa la xusi doonaa ay dhimeyga soo socota iyo ta kale soo socotaba haddii Ilaahay caafimaad taam inuu gaarsiiyo.